nin daaweyle leeyahay dembi uu badh leeyahay xalka doon la leeyahay isagay u darantoo in la daaro ma ogola deebaaqda mililka leh kulan warbaahineedkiisan uu ku qabtay halkan oo hoyga uu ka degay gudaha Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isagoo ay hareer taagan saraakiil ka tirsan isla xisbigaasi ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda sixir bararka xilligan Soomaaliland ku jirto isagoo faahfaahin ka bixiyay socdaal dheer oo ku garaan bixiyay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan goobaha shacbiga ku ganacsada ee suuqyada magaalada Hargeysa muddadii xilka hayay madaxweynuhu sicir bararkii uu sii kordhay ha joogto in wax laga qabto waxaad ka warqabtaan guddi madaxweynuhu u saaray xal u raadinta sicir bararka laakiin xukuumaddii meel qaldan ayay ka doontay waxaana caddaatay in guddigaasi ku fashilmay xil u helidda sicir bararka madaxweyne muuse biixi wuxuu madaxweyne u yahay shacbiga Soomaaliland oo dhan tiradiisu inta yara lagu qiyaasay 3 milyan iyo badh oo ku jira duruufo adag oo dhaqaale oo la il daran nolol adag su'aashu waxa weeye madaxweynuhu shacbiga ku jira duruufta qalafsan ma dareemaya mase ka warqaba haddii uu ka warqabo ma dareemaya si ay u suurto gashay inuu kororsado miisaaniyadda madaxtooyada sanadkan 9% iyo 9 waliba ayaa la kordhiyay miisaaniyadda madaxtooyada waxa arrintaasi lagu kordhiyay miisaaniyadda madaxtooyada in wax laga qabto oo lagula tacaalo sicir bararka maalin kasta walaalayaal waxaan la kulmaa oo la wadaaga sheekooyin qaar ka mid ah shacbiga reer Soomaaliland oo la daaladhacaya duruufaha dhaqaale ee sicir bararku saameeyay waxaan khamiistii 26 bishii afraad soo maray qaybo ka mid ah magaalada Hargeysa si aad ka warqabtaan ee aad kala socoteen qalabka warbaahinta dadkii aan waraystay waxa ka mid ahaa hooyo Aamina Axmed Cige oo 45 jir ah oo haysata 8 carruur ah oo degan xaafadda 150ka odaygeeduna yahay askari jooga aaga bari difaaciisa hore waxay hooyadaasi ii sheegtay inay mushahar u qaataan lacag ka yar 850,000 oo shilinka Soomaaliland lacagtan oo 2 sano ka hor u dhigmaysay $121 maantana u dhiganta $80 waxay ii sheegtay inay ku jirto guri kiraa laga sugayo lacag mulcaamadeed mid caafimaad lana tacaalayso dhammaan noloshii kala duwaneyd ee qoyska hooyadani waxay ku nooshahay warwar waxaanay la wadaagtaa 100,000 oo hooyo oo reer Soomaaliland ah waxaan baaqday dukaan raashinka tafaariiqda iibiya oo ku yaal xaafadda Axmed Dhagax wuxuu ii sheegay in sicir bararku aad u saameeyay nolosha dadka wuxuu igu yiri sicir bararka waxa sii kordhiyay oo sii xumeeyay in dhawaan xukuumaddu 40% ay ku dartay cashuurta raashinka iyo badeecadaha taasoo ganacsatada dul saareen masaakiinta shacbiga ah wuxuu ii sheegay in 10 qof wax ka iibsan jiray maanta 7 ka mid markay ascaarta eegaan iyo qiimaha ku kordhay ay ka noqdaan oo 3 quri ay awoodaan in wax ka iibsadaan gudoomiyaha waxa uu sidoo kale soo bandhigay halka sartu ka qurantay ee isaga ay u la muuqato isla markaana sababtay in xilligan shacbigu la circiraan marxaladda sicir bararka iyadoo ay yar tahay doolarkii inta soo gelay ayaa baahidii loo qabay doolarkana ay korodhay maxaa kordhiyay waxa ka mid ah xitaa sida raflayaashu sheegeen DB World waxay adeega ku qaadataa Somaliland shillings habeenkiina waxay ku bedelataa dollar sidoo kale qaadka oo dadka inta badan cunto isna waxa lagu iibiyaa Somaliland shilling habeenkiina waxa lagu bedelaa dollar
lacag ka badan 200,000 qaarna nus milyan baa ku qiyaasan habeenkii labadaasoo qurma ka soo qaadanaya waxay ahayd in xukuumaddu labada ganacsiyaasha qaadka iyo DB World sida la sheegayo midna account kuma leh banka dawladda marka waxay ahayd in xukuumaddu ku dhiirigeliso in lacagta Somaliland ay dhigtaan oo ay adeegsadaan banka ama xisaaba ka furtaan banka dhawaaqa gudoomiyaha ayaa ku soo beegmay iyadoo dhawaan uu ahayd markii uu socdaal ku maray qaybo ka mid ah suuqyada Hargeysa isla markaana uu soo dhageystay dhawaaqyo ku aadan dareenka shacbigu xilligan ka qabaan xaaladda sicir bararka iyo sidoo kale miciishada kor u kacday ee marba marka ka dambaysa si xawliyeysanaysa Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.